caawa ugu nimaadno inaan markhaati ka noqono ciidan Soomaaliyeed oo mar kale haddana halkan la isugu keenay loo dhameystiray tababarkoodii iyo agabkoodii u dhaartay inay dalkooda difaacaan diyaar u ah naftooda inay bixiyaan raba inay u guureeyaan inay cadowga dalkooda ka xoreeyaan waa sharafta ugu muhiimsan oo dad Soomaaliyeed isugu iman karaan waa mahadsantihiin inaad markhaati nooga dhigtaan ciidanku waa astaanta qaranka Soomaaliyeed ciidanku waa sharafta dawladnimada ciidanku waa ilaaladii xuduudaha cir dhul iyo bad ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed ciidanku waa rajada kaliya ay ummadda Soomaaliyeed leedahay dad iyo dalaan ciidan lahayn macnaheedu waxa uu noqonayaa dalaan dhul lahayn dal baylaha ah in wiilal Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaaliyeed ay u soo istaageen inay naftooda huraan si ay dalka u difaacaan mustaqbalka ummadda Soomaaliyeedna iftiin ugu yeelaan anigoo ku hadlaya dhammaan dadka madaxda ka ah dawladda magacooda waan idin mahad celinayaa inaad dhiiggiina horeysaan waa mahadsantihiin caawa waxaan halkan iskugu nimid inaan idinla dardaarano idinla ballanno idin duceyno caawa waa habeen farxadeed farxad u ah ummadda Soomaaliyeed waa habeen naxdin u ah cadowga Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad diyaar u tihiin inaad jebisaan ood ka soo guuleysataan ogaada waxaad difaacaysaan ma ahan qof ama qabiil waxaad difaacaysaan waa qarannimada Soomaaliyeed ogaada waxaad tihiin iftiinkii ummadda Soomaaliyeed ogaada rajada dadka Soomaaliyeed oo dhan inay idinku xiran tahay ogaada sida aad u dhaqantaan inay tahay astaanta dawladnimada ogaada sida hamigiina iyo hadafkiina uu yahay inay tahay sida mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ay u ekaanayso waxaan aad ugu faraxsanahay maamulka iyo hufnaanta halkan ka muuqata waxaan aad ugu faraxsanahay tababarada kala duwan oo la idin siiyay waxaan aad ugu faraxsanahay isku duubnida halkan ka muuqatay waxaa muuqata in ciidanku uu yeeshay nidaam la diiwaan geliyay xuquuqdoodu ay sugan tahay dawladdu ay diyaar u tahay qalabka ama agabka iyo xuquuq kale hadday u dhiman tahana in loo dhammaystiro ciidankuna ay diyaar u yihiin inay dhammaan dhulka Soomaaliyeed cadowga ka xoreeyaan rajada dalka aan ka qabno ma ahan inaad leedihiin saraakiil ama wasiiro ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne rajada dalkan aan ka qabno waxa ay tahay inta wiil iyo gabar Soomaaliyeed ay diyaar u tahay inay nafteeda bixiso si dalkani uu xor u noqdo cadowgana looga ilaaliyo ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed rajadooda weligood way fiicnaanaysaa wayna guuleysanayaan maadaama idinku aad matashaan mustaqbalka iyo rajada marka inaad isku duubnaataan waa muhiim inaad isku cod tihiin waa muhiim inaad isku mowqif tihiin waa muhiim inaad amarka taliyayaashiina adeecdaan waa muhiim in qof waliba kan kala dhabarkiisa iyo wejigiisa uu ilaaliyo waa muhiim inaad og tihiin idinku inaad walaalo tihiin inaadan gobollo kala duwan ka imaanina qabiilo kala duwan ahaynina inaad tihiin matalayaashii qarannimada Soomaaliyeed maadaama aad calankii garabka iyo qalbiga ku wadataan
taliyaha iyo saraakiisha iyo taliyaashiinana waxaan leeyahay ciidanku kama soo haro hoggaan iyo maamul, kama soo haro xuquuqda dhallinyaradaas dhiigooda shubaysa si loo ilaaliyo, kama soo haro in loo cadaalad falo, kama soo haro in qof waliba uu dareemo inuu kan kale la mid yahay, kama soo haro inay tusaale wanaagsan leeyihiin. taliyaha iyo saraakiishana waxaa laga rabaa inay tusaalahaas noqdaan. annaga madaxdaana waxaana la ka rabaa inaan ka shaqayno, xoogga saarno habeen iyo maalin in agabkiinu iyo xuquuqdiinu idin dhammaystiran tahay. waa mahadsantihiin. ilaahay ha idin fududeeyo, ilaahay idin fududeeyo, ilaahay idin guuleeyo. waxaan rajaynayaa guul inaad u soo heshaan ummadda Soomaaliya.